Bismillahirrahmanirrahiim. Kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada Dalable Media waxaan idinla wadaagi doonaa xogo cusub oo soo baxaya ayaa sheegaya in dowladda federaalka Soomaaliya ay qaaday tallaabo ka dhan ah Imaaraadka Carabta. Waxa kale oo aan idinla wadaagi doonaa eedayntii Mareykanka ee dowladda federaalka oo been noqotay kadib qoraal ka soo baxay hay'adda WFP. ciidanka dowladda Soomaaliya iyo kuwa Mareykankana xalay waxa ay weerareen warshadii qaraxyada ee kooxda nabadiidka ah ee degmada Saakow gobolka Jubbada Dhexe. soo dhawaada channelka subscribe inoo saaro muuqaalka inoo share gareeya aragtidiina inagula wadaaga qaybta faallada mahadsanidin. xogo cusub oo soo baxaya ayaa waxa ay sheegayaan in dowladda federaalka Soomaaliya ay qaaday tallaabo ka dhan ah Imaaraadka Carabta. dowladda federaalka Soomaaliya ayaa la xaqiijiyay inay soo saartay go'aan lagu mamnuucayo diyaaradaha dowladda Imaaraadka Carabta ee military iyo xamuul kadib warbixino sirdoon oo sheegay in diyaarad military oo Imaaraadku leeyahay ay si aan fasax lahayn u gashay hawada Soomaaliya. xog aan helnay ayaa tilmaamaysa in Soomaaliya ay si rasmi ah go'aankan ula wadaagtay Imaaraadka Carabta isla markaana lagu xanibayo dhaqdhaqaaqa diyaaradaha noocaas ah ee gudaha hawada Soomaaliya iyo garoomada dalka. go'aanka la xaqiijiyay sida wararku sheegayaan ma saameynayo diyaaradaha rayidka ah ee caadiga u mara hawada Soomaaliya. tallaabadan ayaa timid iyadoo Soomaaliya Khamiistii shaacisay inay furtay baaritaan rasmi ah oo ku saabsan eedeymo la xiriira adeegsiga aan ogolaasho lahayn ee hawada qaranka. hay'adda socdaalka iyo jinsiyadda ayaa bayaan ay soo saartay waxa ay ku sheegtay inay xaqiijinayso wararka ku saabsan duulimaad la sameeyay iyada oo aan la helin fasax sharci ah, arrin ay tilmaamtay inay khatar ku tahay madax bannaanida iyo nidaamka sharciga dalka. baaritaankan ayaa daba socda eedeymo ka yimid isbahaysiga uu Sacuudigu hogaamiyo ee Yemen, kaasoo sheegay in Imaaraadku ay ka qayb qaadatay baxsashada Caydaruus Al-Zubaydi hogaamiyaha golaha ku-meel gaarka ah ee koonfurta dalkaasi Yemen STC xilli la filayay inuu tago wada hadallo ka qorsheysnaa magaalada Riyaad ee dalka Sacuudi Carabiya. isbahaysiga ayaa sheegay in Al-Zubaydi uu marka hore doon kaga baxay Yemen kuna tegay deegaanada maamulka Somaliland gaar ahaan magaalada Berbera, kadibna uu raacay diyaarad la sheegay inay martay hawada Soomaaliya isla markaana sii aaday magaalada Muqdisho ka hor inta aanay ugu dambeyn u duulin saldhig military oo ku yaala Abu Dhabi. Soomaaliya bayaankeeda kuma aysan magacaabin Al-Zubaydi, balse waqtiga iyo faahfaahinta la shaaciyay ayaa la jaanqaadaysa sheegashada isbahaysiga. dhacdadan ayaa sidoo kale sii iftiimisay khilaaf sii fidaya oo ka dhex xaloosan xulafada Khaliijka ee ku lugta leh dagaalka ka dhanka ah Xuutiyiinta. Sacuudiga ayaa taageera midnimada Yemen ee hoos timaada golaha hoggaanka madaxweynaha BLC, halka Imaaraadkuna uu taageero aragtida STC ee ku wajahan in koonfurta Yemen yeelato maamul gooni ah. xiisaddu waxay sare u kacday toddobaadkan kadib markii dowladda ay Sacuudigu taageerto ee Al-Zubaydi ku eedeysay khiyaano qaran iyo dacwo kale taas oo la xiriirtay maqnaashihiisa wadahadalladii Riyaad. hay'adda socdaalka Soomaaliya faahfaahin badan kama aysan bixin eedeymaha si toos ah u tilmaamaya Imaaraadka Carabta, balse waxay adkaysay in Soomaaliya aysan aqbali doonin howlgallo hal dhinaca ama dhaqdhaqaaq lagu marsiiyo dhulka iyo hawada Soomaaliya, gaar ahaan haddii aan la helin fasax cad iyo hannaan sharci oo la raaco. hay'addu waxay xustay in ixtiraamka madax bannaanida iyo ku dhaqanka nidaamyada sharciga aan laga gorgortami karin, iyadoo intaas ku dartay in tallaabo kasta oo ka leexisa wadada wadahadalka ee Riyaad ay wiiqi karto dadaalada diblomaasiyadeed. dhinaca kale, Soomaaliya ayaa weli si buuxda uma aysan qaadin tallaabooyin ballaaran oo la xiriira xiisadda ka dhalatay aqoonsiga Israa'iil ee maamulka Somaliland oo eedeymo badan ku xiraya in Imaaraadka Carabta uu ka shaqeeyay isla markaana fududeeyay. mamnuucidda diyaaradaha military iyo cargo ee Imaaraadka Carabta ayaa haddana loo fasiray in dowladda Soomaaliya ay isku dayayso inay adkayso maamulkeeda hawada isla markaana ay ka hortagto in dhulkeeda iyo hawadeeda loo adeegsado arrimo xasaasi ah oo aan fasax laga haysan. wararka la helay ayaa waxa ay sidoo kale xusayaan in xukuumadda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay sanadihii 2022 iyo 2023 la gashay Imaaraadka
heshiisyo dhinaca amniga ah oo faahfaahintoodu aan si weyn u shaacsanayn, kuwaas oo la sheegay in Abudabi siiyeen dabacsanaan ku saabsan adeegsiga dhulka, cirka iyo hawada Soomaaliya. Marka la eego go'aanka hadda la qaaday, tallaabadan waxay u muuqataa mid muujinaysa adkaynta siyaasadda dowladda Soomaaliya iyo fariin ku saabsan jihada uu u socdo xiriirka labada dal. Eedayntii Maraykanka ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa been noqotay kadib qoraal ka soo baxay hay'adda WFP. Hay'adda Cunnada Adduunka ee WFP ayaa sheegtay inay dib u soo ceshatay 75 tan oo ah raashin nafaqo oo gaar ah kadib markii Maraykanku ku eedeeyay saraakiisha Soomaaliya inay burburiyeen baqaar ay WFP ku lahayd dekedda Muqdisho iyo Maraykanka oo maalgeliyay isla markaana ay la wareegeen gargaar cunto. Murankan ayaa sababay in Washington ay hakiso kaalmooyinkii dheeriga ahaa ee waxtarka u lahaa dowladda Soomaaliya sida ay shaacisay. Kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda ee dalkaasi Maraykanka u qaabilsan kaalmada dibadda ayaa Arbacadii barta X waxa uu ku qoray in saraakiisha dowladda federaalka Soomaaliya ay burburiyeen bakhaarka isla markaana si sharci darro ah u qaateen gargaar loogu talagalay dadka Soomaaliyeed ee nugul. Wuxuu sheegay in Maraykanku uu joojinayo taageerada Soomaaliya inkastoo aan si degdeg ah loo caddayn qiimaha guud ee kaalmadaas la hakiyay. Sarkaal Maraykan ayaa sheegay in Washington ay ku faraxsan tahay inay maqasho wararka sheegaya in badeecadaha qaarkood la soo celiyay, balse wuxuu raaciyay in maamulku uu sii wado baaritaanka ku saabsan leexsashada iyo si xun u isticmaalka gargaarka ee Soomaaliya. Sarkaalku wuxuu sheegay in Maraykanku ka dalbaday dowladda federaalka Soomaaliya inay bixiso faahfaahin dhammaystiran oo ku saabsan dhacdada. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Soomaaliya ayaa beenisay sheegashada ah in gargaarkii Maraykanku bixiyay la xaday, iyadoo sheegtay in badeecaduhu ay weli ku jiraan gacanta iyo maamulka WFP. Wasaaraddu waxay xustay in baqaarka oo loo yaqaano baqaarka buluugga ah uu ku dhex yaallo aagga dekedda magaalada Muqdisho, halkaas oo ay ka socdaan shaqooyin ballaarin ah iyo dib u habeyn ah, waxayna intaas ku dartay in howlahaasi aysan saameyn ku yeelan ilaalinta maamulka ama qaybinta gargaarka bini'aadanimo. WFP ayaa sidoo kale hoosta ka xariiqday culayska howlgalka iyo muhiimadda gargaarka. Afhayeen u hadlay ayaa waxa uu sheegay in bakhaarka la dumiyey ay ku jireen 75 tan oo cunto nafaqo oo gaar ah, taas oo loogu talagalay in lagu daweeyo haweenka uurka leh iyo kuwa nuujinaya ee nafaqo xumadu hayso iyo carruurta yaryar. Wuxuu xarunta ku tilmaamay mid muhiim u ah howlgallada degdega ah xilli ku dhowaad rubuc ka mid ah dadweynaha Soomaaliyeed oo gaaraya 4.4 milyan oo qof ay wajahayaan heerar cunto yari oo xasaasi ah amaba ka sii daran. Qoraallo ka soo baxay maamulka dekedda Muqdisho oo ay aragtay Reuters kuna taariikhaysnaa Arbacada ayaa muujinayay in WFP ay la wareegtay cunto laga soo raray baqaarka buluugga ah oo loo wareejiyo goob kale. Qoraalka waxaa u muuqda in uu saxiixay sarkaal ka tirsan WFP ee Soomaaliya, waxaana ku yaalay faallo gacanta lagu qoray oo leh WFP waxay xaqiijin doontaa qaadashada kama dambaysta ah kadib marka baaritaanada shaybaarka ay xaqiijiyaan in cuntadu ay ku habboon tahay isticmaalka dadka. Dukumentiyo ay aragtay Reuters ayaa sidoo kale muujiyay in arrintan hore loo sii ogeysiiyey. Warqad bishii November loo diray agaasimaha dalka ee WFP ayay wasaaradda dekedda iyo gaadiidka badda ee Soomaaliya ku sheegtay in WFP ay u baahan tahay in ay banayso bakhaarka buluugga ah ugu dambeyn 31 Diseembar 2025 si fursad loogu siiyo qorshayaal lagu rarayo xafiisyada dekedda. Ciidanka xoogga dalka Soomaaliya iyo kuwa Maraykanka ayaa waxa ay xalay weerareen warshad qaraxyada lagu sameeyo oo ku taalay degmada Saakow ee gobolka Jubbada Dhexe. Ciidamada Soomaaliya oo kaashanaya saaxiibo caalami ah oo ka mid yahay Maraykanka ayaa xalay waxa ay ka fuliyeen koonfurta Soomaaliya howlgal lagu burburiyay xarun ay lahaayeen kooxda nabadiidka isla markaana ay ku farsameyn jireen walxaha qarxa sida ay sheegtay wasaaradda gaashaandhigga. Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa sheegay in weerarku beegsaday warshad ku taala degmada Saakow ee gobolka Jubbada Dhexe
taasoo ay ku tilmaameen goob muhiim ah oo laga soo raro laguna diyaariyo qaraxyada. wasaaraddu waxay sheegtay in howlgalka gebi ahaanba burburiyey xaruntaasi. wasaaradda gaashaandhigga ayaa sidoo kale waxay sheegtay in howlgalka lagu dilay 18 dagaalyahano oo ka tirsanaa kooxda nabadiidka oo ay ku jireen farsamayaqaano iyo injineero ay ku eedeysay inay diyaarinayeen qaraxyada loo adeegsado weerarada lagu beegsado shacabka Soomaaliyeed. ma jiraan warar madax bannaan oo xaqiijin kara sheegashooyinka dowladda Soomaaliya, mana jirto xaqiijin degdeg ah oo ku saabsan in waxyeello ay dad shacab ka soo gaareen howlgalladaasi. Jubbada Dhexe waxaa si weyn loogu arkaa mid ka mid ah saldhigyada ugu adag ee kooxda nabadiidka, iyadoo kooxdaasi muddo dheer maamul ama saameyn ku lahayd inta badan gobolkaasi, oo ay ku jiraan magaalooyinka Jilib, Bu'aale iyo Saakow sida ay muujinayaan qiimeyno amni. kooxda nabadiidka ah ee xiriirka la leh Al-Qaacida ayaa dagaal gadood ah waxa ay kula jirtaa dowladda Soomaaliya ee caalamku taageero tan iyo bartamihii 2000. inkasta oo ciidamada midowga Afrika iyo kuwa Soomaaliya ay kooxda ka saareen Muqdisho iyo magaalooyin kale oo waaweyn, haddana kooxda nabadiidka waxay weli xoog ku leedahay dhul ballaaran oo miyiga ah, waxayna weli sii wadaa qaraxyo iyo weeraro ay ka fuliso meelo ka mid ah gobollada dalka. ololaha ka dhanka ah kooxda ayaa sii xoogeystay kadib markii midowga Afrika dib u habeeyey taageerada nabad ilaalinta, iyadoo ATMIS lagu bedelay howlgal xasilin ah oo bedel ah oo lagu magacaabay EUSOM laga bilaabo Janaayo 2025, iyadoo la raacayo hannaan ay qaramada midoobay taageerto. isbeddelkan ayaa kordhiyey cadaadiska saaran ciidamada dowladda Soomaaliya si ay u sii hayaan dhulka ay xureeyeen, maadaama saaxiibadu ay diiradda saarayaan talo bixin, tababar iyo taageero gaar ah oo la beegsado. Soomaaliya waxay marar badan ku tiirsan tahay taageero dibadeed oo la xiriirta xog ururin, kormeer iyo garab hawada ah. taliska ciidamada Mareykanka ee AFRICOM ayaa sheegay inuu weeraro fuliyo isagoo la kaashanaya dowladda Soomaaliya si loo wiiqo awoodda kooxda nabadiidka loogana ilaaliyo ciidamada saaxiibada ah. howlgalka Saakow wuxuu ku soo beegmayaa xilli dowladda Soomaaliya ay kordhisay howlgallada dhulka iyo duqeymaha ka dhanka ah kooxda nabadiidka, iyadoo inta badan sheegta in tallaabooyinkaas ay ku socdaan iskaashi ay la leedahay saaxiibo caalami ah. horaantii bishan wasaaradda gaashaandhigga ayaa sheegtay inay dishay 29 dagaalyahano oo ka tirsan kooxda nabadiidka ah, howlgal kale oo ay taageero shisheeye ku wehlinayeen. wasaaradda gaashaandhigga iyo taliska ciidanka xoogga dalka ayaa sheegay inay sii xoojin doonaan howlgallada la dagaalanka kooxaha nabadiidka, islamarkaana ay adkeyn doonaan dadaalada lagu sugayo amniga dadweynaha, iyagoo howlgalkan ugu dambeeyey ku tilmaamay qayb ka mid ah olole joogto ah oo lagu doonayo in kooxda lagu jabiyo. dowladda Soomaaliya waxay si isdaba joog ah u sheegtaa in kooxdaasi ay tahay khatarta amniga ugu weyn dalka, halka sharci dejiyaasha Mareykankuna ay ku tilmaameen kooxda nabadiidka laanta ugu weyn uguna halista badan ee Al-Qaacida, iyagoo xusay awoodeeda dhaqaale ururin, sidoo kale qorista dagaalyahano iyo fulinta weeraro adag oo ay qorsheeyaan. guud ahaan warbixinteennii inta ayaa kusoo koobaynaa saaxiibayaal. waxaan idinka codsanaynaa haddii aad inagu cusubtahay inaad channelka subscribe inoo saarto, muuqaalka inoo share garayso, aragtidaadana aad inagula wadaagto qaybta faallada. mahadsanidin.